nin muslin ah ayaa wiishuu saarnaa waxaa la soo gashay habeenay caddaan ah oo qaybo badan oo jirkayda ay qaaban yihiin, yacni aanan asturnayn. Ninkii hoos buu eegay, hal marna dhinaceeda ma uusan fiirin. Aad bay uga xanaaqday arrinkaa. Waa markii ugu horreysay nolosheeda oo aanan qofna eegaynin. Waxay samaysay shanqar iyo dhaqdhaqaaq si uu u soo jeesto, balse hal marna dhinaceeda ma eegin. Labadooda keliya ayaana meesha ku wada jiray. Waxay aaminsaneyd in nin kasta uu ku qasban yahay inuu soo eego ama uu la hadlo. Waxay nafteeda u diyaarin jirtay in rag badan ay soo jiidato. Filan weyn bay ku noqotay xaalka ninkani aan hal mar soo eegaynin. Markii uu wiishka istaagay oo uu baxay ayay kasoo daba baxday, waxayna ku tiri, hey, ma wax baa iga khaldan? Xaggeen la ahay? Maxay tahay sababtaadan ii fiirinayn? Wuxuuna ugu jawaabay, walaashaydi, waan ku ixtiraamayaa runtii. Waxaan ahay nin muslin ah. Waxaa la i faray inaan indhahayga laabto. Waxaan ahay nin xaasle ah, mana ahan inaan haweeney kale oo ajnabi ah jirkeeda eego. Hadalkii ninka ayaa aad u taabtay. Markii ugu horreysay oo nin sidaasi ula hadlayay ahayd. Markasta waxay arki jirtay niman dhahaya, haya quruxleyda, waad shidan tahay, waad nuuraysaa, ma ku sii qaadaa iyo waxyaabo la mid ah. Waxay ka codsatay inuu u qoro nambarkiisa. Muddo kadib ayayna soo wacday una sheegtay inay muslin noqotay. Waxay u sheegtay in maalinkii hadalkiisa gebi ahaanba dareenkeedu bedelay. Waxay ku tiri, islaamku wuu i xoreeyay. Waxaan saacad hor joogi jiray muraayadda si aan makeup isaga buuxiyo oo naftayda dad badan aan ugu soo jiido, balse hadda cabaayad kaliya ayaan xirtaa. Waxaana dareemayaa kalsooni iyo qanacsanaan gudaha ah oo markii hore iga maqnayd.